Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalaha sharafta badan ee ku xiran channelkeena. Waxaan idiin wadaa maanta qiso cajiib ah. Qisadan waxay ku dhacday gabar lagu magacaabo Najma. Najma waxay ahayd 30 jir, muddo xaas ahayd dhan 5 sano, balse ma aysan dhalin wax caruur ah. Arrintaas oo ah in aysan dhalin wax caruur ah waxay ku sababtay in ay samayso khaladkaasoo sababi gaaray in ay weyso qofkii ay adduunka ugu jecleed. Haddaba aan u gudagalno qisada Najma. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa u wacay Najma mid ka mid ah asxaabtii ay shaqo wadaagga ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Nuur ayaa wuxuu ka codsaday Najma in ay si gaar ah isku arkaan labadooda. Najma ayaa u moodeysay in uu Nuur kala hadli doono arrin ku saabsan shaqada, balse taasi ma ay dhicin. Nuur ayaa u sheegay Najma in uu doonayo inuu guursaday oo uu ka helay. Arrintan Najma waxay la noqotay layaab iyo amakaag. Waxay tiri waqti isii aan ka soo fakaro maadaama ay kadis igu tahay. Najma muddo ayay qaadatay waxayna go'aansatay in ay ka aqbasho. Maalin ayay ballamisay oo u sheegtay in ay ka ogolaatay go'aankiisii. Muddo ayay qabsadeen dabeedna way isguursadeen. Intaa kadib waxay ku noolaayeen nololtii u sarreysay, farxad, reen iyo bashbash iyo barwaaqo. Waxay wada qaateen muddo dhan 5 sano, balse wax ubad ah ma aysan isku dhalin. Nuur qoyskiisa ayaa waxay bilaabeen in ay dhahaan xaaskaaga maxay u dhali la'dahay muddadan dhan 5 sano. Arrintan Nuur korkaba iskama saarin oo waxaas waxba uma arkaynin maadaama uu xaaskiisa aad u jeclaa. Balse xaaskiisii ayaa arrintaa xanta ah maqashay oo reerka Nuur ay mar walba leeyihiin waxay wax u dhali la'dahay. Waxay ka codsatay in ay dhakhtar tagaan oo isbaaraan. Odaygeedii waa uu ka ogolaaday oo waxa uu yidhi subaxdii ayaan israaceynaa. Subaxii markii uu waagii baryay waxaa israacay Najma iyo odaygeedii Nuur waxayna qabteen dhakhtarka. Labadoodiiba waa la baaray, nasiib wanaag. Dhakhtarkii ayaa u sheegay Nuur in uu caafimaad qabo uuna wax dhali karo, balse Najma ay cillad ka haysato dhanka makaanka oo aysan weligeed wax dhali karin. Najma ayaa oohin qabsatay oo aad u murugootay isbitaalkii dhexdiisa. Balse odaygeeda ayaa ku qanciyay in ay tahay arrintan qadar Alle oo ay ku sabarto, uuna mar walba jecel yahay meelna uu uga tagi doonin. Waa ay soo baxeen oo waxa ay imaadeen gurigooda. Najma ayaa in muddo ah dareemaysay murug, balse markii dambe qadarta Alle ku qanacday oo qalbigeedii iska qaboobay. Maalin maalmaha ka mid ah Najma ayaa waxay si kadis ku maqashay Nuur oo hooyadiis ku leh waa in aad guursataa, weliba gabar ay dhashay habaryarta. Najma arrintaas markii ay maqashay aad ayay u naxday, balse waxay nafteeda ku qancisay in haddii uu ayada Alle subxaanahu wa tacaala u qorin ubad aysan ka hor istaagin odaygeeda in uu ilmo dhalo. Way u tagtay waxayna ku tiraahday waa in aad guursataa gabar kale. Nuur ayaa arrintan aad ula yaabay kana diiday. In muddo ah ayay ku celcelisay, balse waa uu ku gacan seeray wuuna ka tegay. Maalin kale ayay u imaatay waxayna tiri waxaan rabaa in aan kaa codsado arrin. Ma ii samayn doontaa? Wuxuu yidhi haa. Waxay tiri waxaan rabaa in aad guursato gabadha ay dhashay habaryarta. Waa uu diiday. Ugu dambeyn sidii ay ugu celcelinaysay waa ka ogolaaday. Nuur waxa uu guursaday gabar ay dhashay habaryartiis, balse waxa uu jecel yahay xaaskiisii hore ee Najma. Gabadhii markii uu guursaday muddo kooban kadib waxay yeelatay uur, waxayna dhashay wiil. Reerkii aad ayaa loo wada farxay, balse xaaska dambe wax ay aad ooga maseertay jacaylka uu u qabo Nuur Najma. Waxayna go'aansatay in ay kala fogeyso. Waxay mar walba sameyn jirtay arrin been abuur ah oo ay ka been abuuran jirtay Najma. Ugu dambeyn waxa ay samaysay in ay dhahdo Najma waxa ay rabtay in ay disho wiilkeyga maadaama ay madhasho tahay.
Nuur ayaa asagoon ka fiirsanin arrintan kula orday xaaskiisii hore ee Najma, kuna qayliyey kuna canaantay. Run ahaantii Najma aad ayay u xanaaqday, waxayna go'aansatay in ay guriga hooyadeed aado, maadaama maalin kasta arrin been abuur ah loola imaanayo oo aan ka fiirsi lahayn. Odaygeedii Nuur ayaa isku dayay in uu celiyo, balse waa ay ku gacan saartay, waxayna go'aansatay in ay baxdo. Ugu dambeyn, Najma way baxday waxayna aaday guriga hooyadeed. Intaa kadib, Nuur waxa uu la noolaa xaaskiisii dambe iyo wiilkiisa. Muddo kadib, waxa uu dareemay in arrinta laga sheegi jiray Najma ay been abuur ahayd, balse xaaskiisan dambe ay tahay qof xun. Wuxuu ku arkay khaladaad aad u fara badan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in si taxaddar la'aan ah ay u dili gaartay wiilkeeda. Arrintaas ayuu aad uga xanaaqay Nuur, wuxuuna arkay khaladaadkeedii oo idil, wuxuuna go'aansaday in uu furo. Ugu dambeyn waa uu furay xaaskiisii dambe, waxa uuna haystay wiilkiisa. Wuxuu ka codsaday Najma in ay u soo noqoto maadaama uu u xiisay, sidoo kalena uu u xiisay wiilkii yaraa maadaama ay ahayd eeda fiican. Waqti ayay ku qaadatay in uu Najma ku qanciyo arrintan. Ugu dambeyn, Najma waa ay u soo noqotay. Saddexdoodii waxa ay ku noolaayeen farxad iyo reynreyn. Waa Najma iyo odaygeedii iyo wiilkii uu dhalay oo ay eedada u ahayd. Waxaa soo laabatay farxaddii luntay. Waxaa halkaas ku idlaaday qisadii Najma iyo Nuur. Fadlan ha ka iloobin inaad la share garayso asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo channel-ka subscribe saaro, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Wassalaamu calaykum.